ومن waxaan ku weydiiyay horta rag inaga colaad ka dhaxaysaynahay aagan garbada dariya gaarkiisana anagu niman reena inaga sareeyo colaad nagu soo qaad ilaa biyo kulul weyn u dhacay wax gogol nabadeed laynoo fidiyay sababta aad halkan imika dib ugu soo noqoteen wax ma iga sheegi kartaa waxa sababa wardegdega dawladda sharafta leh soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee galbeedka Soomaaliland gaar ahaan xaaladda Seylac ayaa halkaaydan kugu soo gudbinaya jabhadda Ciise ayaa fuliyay toogasho wadareed oo hal mar ay u geyseen jabhadda Gadabuurse ee shakhsiyaad ay ka qabteen taasoo sii kicisay xiisada gobolka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyay maamulka iyo jabhadda Ciise ayaa diray hanjabaado aad u culus kuwaas oo ay ugu hanjabeen Gadabuurse isla markaana ay ku sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin culus iyo sidoo kale maamulkii dhawaan Gadabuurse ay magacaabay xiriirad iyo xaalad culus oo ka taagan ee deegaanadaasi iyo sidoo kale xiisada faraha ka sii baxday ugaaska guud ee Beelaha Ciise ugaas Mustafa amar degdeg ah bixiyay iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo soo farigeliyay arinka ka taagan galbeedka ee Soomaaliland iyo xiisadii dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyay ayaa halkan kugula wadaagaya hadaan ugu xusubtahay markoo nagu soo biir subscribe saaro janaalka la gareyso share garey muuqaalka asxaabta si gaarsiin mahadsanid aynu gudagalno jabhadda Beelaha Ciise ayaa dhaqdhaqaaqyo culus ay ka wada Seylac iyo sidoo kale nawaaxigeeda iyagoo markii jabhadda maalmihii ugu dambeeyay si xoogaysan ugu soo badanayeen ee deegaanadaas isla markaana ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo aad u culus kaasoo jabhaddu ay ku bilaabeen sidoo kalena ay isku dayayaan inay qaadaan duulaano aad u culus isla markaana ay ku farageliyaan arrimaha maamulka jabhadda ayaa la sheegay in dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ay ka wadaan iyadoo sidoo kale maamulka deegaanka ay wax ka qaban waayeen kadib markii la sheegay in jabhado hore ay ku soo qulqulayaan ee deegaanka shacab oo ah fadhiga jabhadda Ciise ayaa la sheegay inay ka soo kicitameen jabhadii ugu badneed kuwaas oo sita gawaarida dagaalka isla markaana toos u soo gaaray Seylac oo ka wada deegaanka dhaqdhaqaaqyo culus muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya sida jabhadda ay dhaqdhaqaaqyo culus ay ugu wadaan Seylac isla markaana maamulka Soomaaliland oo ilaa hadda war uusan ka soo saarin kadib markii jabhadda ay ku soo qulqushay Seylac isla markaana halkaas ay ka wada dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay iyadoo xiisaduse faraha ay ka sii baxday isla markaana dhaqdhaqaaqa uu sii xoogaysay jabhadda ayaa la sheegay in amar buuxa ay ku bixiyeen isla markaana ay sheegeen in jabhadda Gadabuurse iyo sidoo kale reerkaba ay iskaga baxaan meelahaasi haddii danta ay doonayaan in la ammaan geliyo iyagoo sheegay inay u nixi dooneen dhawaan ayay ahayd markii jabhadda Ciise ay dhashiiko ay la egteen caruur iyo sidoo kale dumar dad waayeelaa iyagoo aan kala socon kadib markii jabhaddu si aad uga cadhootay falkii ka dhacay xiriirad isla markaana reerka Gadabuurse ay ku doorteen maamulka cusub ee halkaasi arinka ayaa soo farageliyay maamulka Soomaaliland isla markaana garab siinaya jabhadda Ciise iyagoo beelaha Samaroon ay sheegeen in beesha Isaaq ay garab taagan tahay maamulka ay doonayaan reeraha Ciise oo ay ku sheegeen iyaguna in garbadadar ay ku doorteen dhanka garbadadar iyaduna waxa ka socda dhaqdhaqaaqyada culus sidoo kale waxa la soo tabinayaa inay gaareen laba jabhadood oo ka kala socda jabhadda Ciise iyo sidoo kale kuwa Samaroon oo halkaas iyaguna ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay kadib markii saacadii la soo dhaafay ee la soo taminahay lagu arkay deegaanka jabhadda Ciise oo iyaduna halkaasi ay ka wada dhaqdhaqaaqyo aad culus isla markaana ay doonayso in halkaasi ay ku qaado duulaano culus oo ay weerarto fariisimo loogu sheegay in jabhadda Samaroon ay ka sameysteen aaga dhankaasi waxaa la soo tabinayaa in jabhadda Ciise iyaguna ay qorsheeyeen inay sii ballaariyaan weeraradooda ka dhanaa ee gobolka iyagoo sidoo kale ay qorsheynayaan in markaan ay bilaabaan beegsi toos ay ka fuliyaan jabhadaha Samaroonka saddexdii bilood ee ugu dambeysay la soo dhaafay ugu dambeysay bishii barakeysaneed oo Ramadaan oo markaas la gaaray heshiis waan oo toos aan ahayn ayaa ahayd saddexdii ugu kulleed isla markaana kadib markii Seylac iyo ilaa sidoo kale garbadadar fardal lagu xir deegaano badan oo kamid ah galbeedka Soomaaliland oo la isaga qaxay oo xoolihina la isaga cararay ayaa sababtay inay ku dhintaan tiradii ugu badneed Ciise iyo sidoo kale Samaroon ay iska geysay khasaare kala duwan isugu jirta dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaa ciidamada maamulka Soomaaliland oo dadaalo xoogan ay ku bixiyeen iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa lagu soo celiyay qaar kamid ah dadkii qaxay iyo sidoo kale xoolahoodii iyadoo labada dhinac ay kala gudbisteen maxaabiiso kala duwan isla markaana la doonay in lagu soo celiyo xiisada gobolkana lagu dejiyo sidoo kale waxaa halkan kula wadaagayaa jabhadda Ciise ayaa fuliyay toogasho wadareed kadib markii ay qabteen shakhsiyaad ay ka qabteen jabhadda Samaroon iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq culus nala sii joog oo aan kula sii wadaagno faahfaahinta warkaasi si aad u ogaato
xiriirad ayaa ka taagan dhaqdhaqaaqyo aada u culus kadib markii beesha Samroon ay sheegeen in maamulkooda iyagu ay taageersan yihiin isla markaana marnaba aysan ka tanaasuli doonin dhanka kadib markii la xiray maamulkii dhowaan halkaasi loo doortay iyo xiisada oo faraha ay kasii baxday. Maamulka Somaliland ayaa gebi ahaanba qaadacay sidoo kalena diiday maamulka ay reeraha Samroon ay sheegeen in iyagu ay u doorteen maamulka inay ka arrimiyaan ayay sheegeen Somaliland inaysan marnaba aysan ahayn wax suuragala maamulkaasi halkaasi loo doortay halkaasi ka taliyaan iyadoo maamulka uu sheegay inaysan wax marnaba reer kaliya aysan dooran karin iyadoo goobta uu ka jiray nidaam iyo sidoo kale maamul cusub taasoo lagu sheegay inay kicin karto xiisada gobolka sidoo kalena ay abuuri karto xasarado kale. xiisadu se faraha ayay kasii baxday garbadadar ayay iyaguna ugu dhawaaqeen maamul cusub kadib markii xiriirad Samroonta ay sheegeen maamul ay ugu dhawaaqeen jabhadda ciise iyagoo ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin culus isla markaana aysan arrinka ugu baaqsan doonin kadib markii carabkooda ay ku adkeeyeen in halkaasi aysan uga hari doonin dhaqdhaqaaqa ee gobolka ka taagan. Waxay kaloo ay xuseen inay qaadi doonaan tallaabooyin culus oo aysan arrinkaasi uga hari doonin iyagoona ay sheegeen inay intaasi ay kasii ballaarin doonaan duulaanadooda. Waxay kaloo carabka ku adkeeyeen in marnaba aysan aqbali doonin in iyaga iyo Samroonba ay gobolka wada joogaan. bismillahi raxmaani raxiim umina waxaan ku weydiiyey horta rag inaga colaad ka dhaxaysaynu nahay aagan garbada dar iyo agaarkiisana dee annagu niman rarina inagaas rareyo dee colaad nagu soo qaaday dabeedna ilaa biyo kulul waynigu dhacay dee wax gogol nabadeedoo laynoo fidiyey ma jirin sababta aad halkan imanka dib aad ugu soo noqoteen wax ma iga sheegi kartaa waxaa sababa anaga ciidamada soo ay kumasha anaga dhigayna ay ninkaas goobtiis ay hatago ay sabe nabada ku dhacay sabe marka cidda in tiri in soo guura annaga gogosha dhigayne nin walba goobtii aad deganay soo deganay yaa ka mid ahaa oo naga magacaabi karta hadafada dhigta way roo ay sabtaankuna waa ahaa ay ay uu ku jiray baa lagu biyo kulul ay ordayana uu ku jiray gudoomiyaha garbada dar ay soo digay sabe nabada ku dhacaysa ay yiraahdeen iyo kala madaxda sarena ku jiray in yaa kala ku jiray madaxda sare wasiirka ku jiray ku jiray Cabdisalaam Dheere ay ku jiray ay hakaabana dibna soo ay dhulkiina dib degayna yiri annaga nabadda dhigayne ay reer walba halkii aad ka soo guurtay waa sax adigana muusow sidoo kale ay ay yana soo rartay ay 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 way joogay ay waaka marka ay dhigeyso ag sababta ag dee markaad idinku waraysateen ilaa nimankan aad ku soo guuraysaan la colaad ay niga dhaxayso dhiig bay dhex yaalo xabad joojin baa dhacday ma iyaga biyo kulul igu yimiday ninkan gudoomiyihii iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo suldaanka sheegaysaan oo gacanta lugteeda inagu yimiday ay marka dib soo guurinta dambe ragaasa inii sameeyay good on gartay waxaan ku weydiiyey marka haddaba dhigeyso markay idin yidhaahdeen dib u soo dega idinku odayadiinni ma yidhaahdeen borbal horta gogol nabadeed noo fidiya waxba ma yidhaahdeen
وش النبضة وكان سودة أنا قاعد كده هنا سودة بغيرين ودي سودة أي waxaa soo dhacay madaxoogii thank you midda ku sheegay horta sida inankaasiba uu soo sheegay colaad bay naga dhaxaysay waan garanaya nin walba halkii uu dagaalku gaarsiiyey ayuu joogaa idigu waad guurtinoo beeyo kulul ayaad hoos u weydaaratay soo waxaad garatay maaha ninkaas wuxuu sheegay inuu qotan ay ka soo noqdeen meesha qotan ay ka soo noqdeen soo noqoshadaasana inay nimanka madaxda ah ee urday ninka urdaya la yiraahdo sultaan Asmaan Ducaali Cabdalla Sandheere Cundufo inay horta kow ay arrimaha ay mataqaanaa ay hor socdaan ay ku xigto dawladdu nimanka askarta ah ee aagagan degan aad joogtaan iyaga wax warbixin ma ka haysaan iyaga warbixin ay soo geedigeen waxay yiraahdeen jooga soo dega iska dega bay صح ay su'aal ma weydiisay in rag bay xabad inaga dhaxaysaa ragga bal ka waran haday wax niga yimaadaan yaad tawanad qaaday mutraad hayo anaga daawan qaadanay anaga dawanad qaaday anaga daawan qaaday okay qori saro qaadana wajinayo ilaahay inaan qori kor qaaday oo yaana xoolaha ku soo doonay xoolaha ku doonay inuu ka soo dagaal taga inaynu jirin bale okay mid kale inuu weydiiyay hubkan aad ku dagaalameyseen intaas ambar galbeed ay niimaado amba cid kale baa inay timaado